shirka Jumcalaha mideynta dhalinyarada beelaha Jareerweyne iyo Lakagawadi caadiyanba sidii hore Lankagawada jiray gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamul goboleedka Jubbaland. Shirkan iyo ka bedelanayay shirarkii hore oo dhalinyarada beelaha Jareerweyne iyo ka qabsada jiran gudaha magaalada Kismaayo sababtoo ah dhalinyarada beelaha Jareerweyne iyo may si rasmi ah dooradana gudoomiye guud oo wada dhanyan shirkan oo ujeedadiis ahayd in ay ka midooban sidii walan wada qabsada lahaayeen oo dooradan gudoomiye dhalinyaro oo hogaamiya u yahay doorada xilka gudoomiyenimada Maadi Abduqaadir Macalimu ayna ku soo qayb galay goobta ka dhiyaytii doorashada xilka gudoomiyenimada dhalinyaro fara badan oo ka shal dareeran dhammaan qabiilada ku kooban beelaha Soomaali Bantu ama Jareerweyne oo ka dhaqan gudaha magaalada Kismaayo. Inka dambeyntii ay ku waramay goobta kusoo qaybgalayaasha shirka oo ku horeeyay gudoomiyaha dib u heshiisinta qurba joogta beelaha Jareerweyne Mudane Abduqaadir Cabdullaahi Abdi Abiyow afhayeen Cawad Maxamed Mahad gudoomiyihii la dooradii Maadi Abduqaadir Macalimu iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii kusoo qaybgaleen shirka. walaalahey siin salaamnay dal idibadu meel rogtaan siin salaaman anoo magacay ee Abduqaadir Cabdullaahi Abdi Abiyow ee gudoomiyaha dib u heshiisinta qurba joogta هولي ونقولني واقعي قدومي ونصدورني واقعي wax walbana ka dhirigaasan si live ah satellite dhan sin sadigan wulib idaacadaha siin jeeyaan kastay marka saas loo socdo Kismaayo walaayo uu ka hayno waaqay tuuli iyo group iyo degmana maka jarna ba budget ko ona aad aan fadhina dhalinyarada jubbooyinka gudoomiyaha dhalinyarada jubbooyinka waay waxay hadda aan fadhina muhiimadeena antas waay tuula ma ko kooban degma ma ko kooban ilaahay waa kuuran gobol ma ko kooban shiidi ka jir shabeelle ka jir mashuunguli ka jirta mahawaaya ka jirta majindi iyo manyaasi wala dhahaw ma jirta jareer good waay maantan na marka siin wada salaami nan walba marka may marka no wada kulmiyoyte tantas isan kasan wada kulmiyo qabiil ma midnimo mayo shirka midnimo ماذا بيشتري وين كل من نما لو يهي وانا لو دني هي انا قرب اسقبسدان اي مادين ماشي واحد بيش فعلا ورقش xilka la kiisheego sidii walaalahayba ka dhawaajiyaan ma aha wal oo ana oo ilokooy keli ma aha waa wal bulshadan iska la too bulshooyinta intii lindeerna intii anab inas arago hadii oo howla muwada karo saddex option way mid waa in motion li inkasheeno oo shaqaday intii gudud waayo la cadeeyo midaas waa midaasi mar waqtigay intii dhamaado oo macna doorasho dhiido taas waa mid waa mid oo mataqaanaa an naftirkayb is azilo دي كورت سديد possible intii dhiyan salaam alaykum mada qarab kaamiradan dirsi dhamaan siin salaamne shirka maanta aragooytan waa shirko tuulu ma gobol ma degmo ma qabiil ma shir mideynta Soomaali Bantu misana Jareerweyne dadkuna daayis galay lama kun ka gadani oo isku hubayni qaabka sana ku socona dhamaan siin salaam marka hadii ilaahay karaal nagadona hadda aadan maasintan intii dooratay intii in dooran dhatiyo ma sha Allah midaas ayada at talaabo muhiim ah waa fursad dahabi ah marka walaalayaal misin la hawshan markii aan gudoomiye ay ma aha mid aan kali wada karo ma in baahanta wada shaqeyn sidii la socotaan ba Kiswahili maykum kama ma hoday kidole kimoja hakivunji chawa de taasoo macnaheedu sheegto hal far injir midilaaso barooway hadii fadaasan ila ka reebto le farki liidiye macnaa waxa way wal qabadaas bal fool ma dhaqaasi dhahan anaga Soomaali hadeen marka hal qof walba ma qabado karo marka may hadaan aragooy howlo fara badan intii anaga oo nahaysato guud ahaan macnaheedu ma aha gudoomiye ay iska fadheeda ma jirto ficil la baahan ficilka la baahan waa mid oo bulshada oo lanqabada u baahanto sidii la socotaanba aqabado fara badan iyo nahaysad hadda dal idibid dalka kelima may kamid shaqada shaqaaleyn imisa Soomaali Bantu inta roogto oo macnaa hay'ado in shaqeeyo ay fartaago kor ay hay'ad in shaqeeyo oo billi mishaar shaqaado ay jirta أنا هجيت كشجع
اوكي نينك الحافظ كشقاوي مالا ملاي مداس ايدا اتولي نينكو قابتي اوكسنتينا انا قال اسكا هايني marka waxa way isku xirnaashi la'aantu ugu dambeyntii iyo dhammaan dhalinyarada ku soo qayb galeen shirka wada tashiga midnimada dhalinyarada beelaha Jareer Weyne lanka baaqi inay iyo ka shaqeeyaan oo ilaaliyaan midnimada beelaha Jareer Weyne meel walba iyo caalamka kurugan dal iyo dibadba mayna sidoo kale lan sheegay dhalinyarada inay iyo ka shaqeeyaan isku xirnaanshaha sinaanta waxbarashada horumarka iyo raadinta xuquuqaha ka maqan qowmiyadda beelaha Jareer Weyne wariye Yusuf Daabiyamba telefishinka caalamiga SBTV magaalada Kismaayo.